السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مدشة فرن بي سي بريتش كولومبيا وأنيقو حسن عربة waxaa maanta sharaf noo ah inaanu la kulannay laba dhallinyarta ka mida magaalada oo ka mida abaabulayaasha mawduuca sanad guuradii ama maxaanku idhahdaa ka soo wareegtay maalintii jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya ay dowlad noqoto adduunyadana ka mid noqoto midigtayda waxaa fadhiya isra bidixdaydana waxaa fadhiya abuukar oo ka mid ah activitayaasha ama dhallinyarta ugu firfircoon is abaabulay raba inay u dabaaldegaan Somali Day-ga iyo Canada Day oo isku soo beegmay markaa waxaanu ku soo qaadan doonaa haddii aan la yidhaa maadaama aynu marayno toddobaadkii xorriyadda 26 Juun iyo 1 July oo isku darkii labadii gobolla uu ka xoroobay Ingiriiska gobolka kalena uu ka xoroobay Talyaaniga sidaasna ay ku timid Somali Democratic Republic markii hore markii 60kii la israacay 1 July habeenka calanka laga saaray ummadda Soomaaliyeed geegeedii oo dhan waxaa midigteeda fadhiya Isra waxaad nooga warantaa waxaan u malaynayaa waxaad soo wadaan barnaamij ku saabsan u dabaaldega munaasabadda qaaliga ah ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto bal hadda wax warbixina oo aad naga siin kartid barnaamijka saad u qabateen iyo waxaad damacsantihiin السلام عليكم أنا مس إسراء أنا Somali Day وحان دقنا مالن أنا سنة كيبا هالمر which is كودة لوليا إن شاء الله أنا الدور كنا وان دقينا دولا إنجارسي وحان كودينا هالكن بيركريك بارك كان كودينا وحب لا ميسا كوبي طبعا كأرور نمو أي بلا ميسا حلفدو أنا مر أدو لا سنة دين صور دافو هورا وان دقي شرني برك هورا Somali كمي بدني ودن كان بي سي بل لكن إيجا Soomaalidii baa soo korodhay like masha Allah waan badanahay meel walba way buuxaan so waan isku wada imanaa maalinkaas waan wada dabaaldegnaa waa maalin farxad badan aad bay u mahadsan tahay abuukar baan isna su'aal la mida weydiinayaa isna maadaama uu ka mid yahay abaabulayaasha iyo soo qabanqaabayaasha xafladan inagu soo foolle haddii Allah awoodda la ogolaado maalinta hadda waan idin mahad celinayaa adiga iyo jaamac madasha furan barnaamijkan oo aad idinkuna aad nagala soo qayb gasheen kadib markii aad maqasheen annagoon idin soo casuumin idinkana soo raadsateen horta aad baad ugu mahadsan tihiin taasina waxay ka mid tahay siday munaasabadan muhiim u tahay anigu halkaan in badan baan joogay xitaa waxaan xusuustaa berigii oy dadku waa lagu badnaa laakiin mar dambe oo laga kala tegey xilli waxaan xusuustaa maalinta xorriyadda gurigayga gudihiisa aan ku qabsanayo anigii asxaabta waxay nolo dhow baalaha gurigayga inta markaan singala halkaa laysaga cayaari jiray xilligaa waa la soo dhaafay hadda dad baa u agaasiman dad badan baa jira hadda ninka kaahiye la yidhaahdo waa dadka ugu horreeya oo isoo wacay waxaan leenahay gabar iyadana hogaaminayso oo muno la yidhaahdo iyadana hadda way naga maqan tahay marka sanadadan dambe way isku xigtay inkastoo hawadu ay isbedesho oo la yidhaahdo berri roob baa da'aya maalin dambe aan dhahno dib dhiganno anigu horta waxaan soo jeedin lahaa hadda aan ku darsan lahaa weatherka si kasta oo ahaado waxaan dhib baa loo soo maray annaga naftirkeena waa inaan dareennaa dhibka loo soo maray annagoo roob nagu da'ayo ambareella haysano hadday dadku arkaan dadkan roobkan dhex taagan maxay ay tahay ilaan waddan kala joogno oo maalintii xorriyaddooda waaye oo ay qaateen la yidhaahdo laakiin inaan kula hagaagsano macnaa waa anigu saasaan dhihi lahaa waad aragteen baan u malaynayaa dadkan seniorkaasi macnaha markii la gaaro I think waxa memorialkooda la gaaro iyagoo waayela ayaa -47 barafka lagu soo dhex riixaa marka annagana saas oo kale inaan saa u jeclaano ayaan rajaynayaa aad baad u mahadsan tahay abuukar sida wanaagsaneed noogu balballaadhisay israan hadda ku noqonaya isra waxaan ku weydiiyey waxaad tiri waa muddo dheer baanu soo qabanaynay hase yeeshee waxaad sugaysaan in Soomaali badan ay hadda ka soo qayb gasho anigu waan arko magaalada Soomaalidu aad bay ugu soo badatay marka maxaad ka filaysaan barnaamijku markuu qabsoomo haddii aan la yidhaa ay Soomaalidu iskugu timaado yacni maxaa munaasabadda aad qaabkeed
u qaabayseen sidee wax idinku soconayaan ama barnaamijka aad wadataan wax ma nooga sheegi kartaa ya horta Somali Day adu mar walba waxaan ku dhigi jirnay baarkaan ku dhigi jirnay inkastoon doorkii Somali Day-dii hore soo dhaftay sanadkii hore aan ku dhignay hall aan hallkii aan ku dhignay halkii like 200 iyo ama 100 dooran ka sugeynay adu masha Allah 500 qof ay timaaday so saa darteed baan ka dhignay baarka ayaan hadda ugu bedelnay because baarkuun baa qaadi kara dadku way soo bateen masha Allah wadankoodu way jecel yihiin way soo labisteen waqti ku bixinayaan so anagana waxaa fiican inaan waqti gelino so saa darteed waxaan bilownay inaan samayno groupka xawataaka team marka hore ahayd eeg waxaan ka dhignay roots and rhythm baan ka dhignay aan samaynay waa group u qaabilsan qaybta dhaantooyinka sayliciga adugu waxaa wixii hiddi iyo dhaqana ay u qaabilsan yihiin waqti baan gelinay waan practice garaynaa maalin walba waxaan rabnaa mataqaanaa maalinkaas jacayl aan u qabno dhaqankeena hiddi iyo dhaqankeena iyo maalinkaas saan ugu bandhigno dadkuna ay ugu farxaan darteed ayaan maalinkaa mataqaanaa aan u samaynay so insha Allah halkan aan ku dhigaynaa ha aad iyo aad baan u soo dhawaynayaa abukar waxaan kugu celin lahaa ma waxaa jira dhalinyaro aad u tababarteen hidiya dhaqanka iyo heesaha wadaniga iyo may jiraan absolutely dhalinyaradu keli maana xataa odayaasha ka mid ah oo anigaba aan ka mid ahay marka maalintaasi waxaan dareensiinaynaa dadku in ay macnaha heesahoodii dhaqankoodii xorriyadoodii waxaan u malaynayaa inaanba laga gaari karin wakhtiga nagu gaaban doono laakiin waxaa imaanaya alaabtii sbiikaradii baan keenaynaa waaweynaa waxaan generator baan keenaynaa kabacdina hadde waxa waaye asxaab badan oo fanaaniina jirto oo aad aragteen kuwo kale oo aanan xataa meesha macnaha aan liiska noogu jirinoo iyaguna magaalada inay marti ku yihiin iyaguna kasoo qayb galaya waa jirtaa marka maadaama ay macnaha ay tahay xaflad Soomaaliyeed macnaha in ay qof walbaba oo meeshiisa arrintiisa ka dhiibto taasaan rajaynaynaa annaguna waa u diyaar heesahoodii waa u diyaar waxaan waa diyaarsan annaga mahadsantiin su-aal kale oon idin weydiinayo isra ma ka soo qayb gelayaan madaxda degmada ama magaaladan aynu degannahay suuri city consulka oo maayarka oo ciidaad dawladda ka soo marti qaadeen ma jirtaa ha horta way nala dabaaldegi jireen mar walba xitaa wiil aanay caawin jiray boolis buu ahaa aanay cadaan buu ahaa even the mayor wuu nala dabaaldegi jiray but laakiin I'm not sure this time taas waxay u xil saaran tahay muna u xil saaran also mar walba aan casuumana as a community baan u xasuunaa oo communityga Somali People Association casuuma mar walba so they used to come all the time mar walba inoo imaan jireen but like in this time I'm not sure waa inaan muna weydiinaa insha Allah waxaa isaguna halkaa iiga muuqda kaahiye oo ka mid ah abaabulayaasha xafladdan oo ah ninkii xitaa nala soo socodsiiyey markaa bal isagana qaabkay xafladdu u dhici doonto iyo wixii ay isla soo qabteen isagii asxaabta iyo halkan kuu soo galaan wax ka weydiin lahaa والله horta alxamdulilah waa mahadsantihiin dhammaantiina adig iyo adeer xasan iyo jaamac waad ku mahadsantihiin dadaalka aad samayseen iyo raadinta aad soo raadiseen xafladdan waxaan u malaynaa horta aniga magaalada inta muddo yaraan iska joogaa laakiin horteeday socotay ilaahay khayraasiyay gabar manula dhiyaraa usoo dhabar jabtay oo waxaan qaban jirtay iyo isriyi iyo asxaab badan marka horta fanaaniin badanna way joogaan ninkan yuusan ku dhammanin waa alfanaan abukar sata la yidhaahdaa waa nin fanaan weyn abwaan fanaan xasan waa jooga marka xasan waa jooga xasan neero waa joogaa waxaan jeclahay mawlid isagana sidoo kale inuu joogo mawlid waa maqaya laakiin waxaa imaanaya isagana jamaal iyo jamaal alfanaan jamaalna wuu joogaa marka fanaaniin badan way joogaan koox hidiya dhaqan oo noo diyaarsan way joogaan DJ-ga magaalada DJ Jaja isagana waa joogaa marka waxaan leeyahay xaflad isku daba dhacsan waaye marka sanadkan waxaan rabnaa inay ka weynaato xafladihii hore aan qaban jirnay waxaan rabnaa inaan u diyaar garowno waana jecelnahay waan u diyaar garowno saan jeclahay inkastoo maanta cimilada nagu haddana nagu gacan seertay haddana wallaahi bilaa aad aan ugu faraxsannahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin marka mar kale iyo waxaan idinku soo dhawaynayaa gacmo furan oo aan idinkala soo qayb geli doonaa haddii aan la yidhaha maalinta iyadoo looga daawan doono maxaan ku dhahaa baraha bulshadoo dhan si life ah oo toos ah oo hawshaa uu jaamac inoo xil saaran yahay farsamo yaqaanka isku dabaridka soo abaabulaha jaamac laantiina aynay noo suurto gasheen inaynu isku nimaadno inagoo matalayna Soomaaliya aynu halkaa ku kulanno waxaan malaynayaa hadal baad qabtaa baan malaynayaa
soomaali waa mid waa uliya mayrax matana weeyo meel bay ka wadaa timi midigay bidix ma ka maarantaa madaxow mijaha ma ka maarantaa nabad baa macaane ma ka maarantaa miinlayda heestiyo murtiyo ujeeddada su'aalahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay maalintaas markaa waa halkaas aad baad u mahadsan tahay way gaaday aad iyo aad wallaahi aniga emotional anigaba khayray qabatay mar baan sidhe adiga laftigaagu ma heestaa halkaana waxaa joogtaa xaliimo oon iyana su'aalo ka mida uun weydiin doono bal xaggan ila soo dhaqaaq dhinaca aniga iyo xaliimo meel qurux badan oo u baxaya fadhida xaliimo adiguna maxaad is leedahay maalintaa haddii aan la yidhaha markay qabsoonto aad iyo aad waan sugi la'ahay maalintaas maalin waxaa weeyo aad iyo aad iigu weyn waana maalinka Soomaaliya Day maadaama maanta ay tahay laakiin maalintaas insha Allah waxaan soo bandhigi doonaa dhaantooyin fara badan aad iyo aad xaliimo aad bay noogu sheegtay munaasabadda aan sugi doonno haddii aan la yidhaha ee 5 bisha waxaan ummadda Soomaaliyeed ee British Columbia iyo Suuriya ereyada ku dhaqan waxaan u rajeynayaa inay si fiican uga soo qayb galaan oo isku soo duwaan iyagoo wax walba u soo huraya maadaama ay tahay xorriyaddii 66 sano ayaa ka soo wareegay maalintaynu calan madax bannaan aynu adduunyaduna ictiraaftay ayaan u rajeynayaa Soomaaliya isku timaado mid kalena waxaan leeyahay happy Canada Day waa maalintii xorriyadda Canada iyaduna oo ka soo wareegtay 159 sano ayay xor yihiin inana 66 waxaynu rajeynaynaa wax badan aynu kaga dayan karno qurba joogta meesha joogta insha Allah bidmillaahi kariim waxaan idin rajeynayaa dhammaantiin guul iyo inaynu ku guulaysano inay xafladdaasi qabsoonto haddii Allah wadil ogolaado bidmillaahi kariim sidaa iyo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته